dabka dhashay koronto ayaa ka kacay xaafadda danyar ay degan yihiin oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waa kuwan qaar ka mid ah goobjoogayaasha oo inaga waramaya sidii u badbaadiyeen caruurka agdhawaa dugsi quraan daris la ahaa guriga gubtay. Sidoo kale waxa inoo waramay qoyska guriga deganaa. saacada kadib haddaan jiifo waxaan arkay dab korkeyga ka soo daadanayo. Waxay korey jooryaal iyo dhar iyo waxaas ay korey oo darbi manaha arxanka meesha ay ku hayeen. Arxankii dab ka soo daatay oo jooryaal soo gubay. waxaan arkay anoo gubanayo marka dambe sariirta aan ku jifan ka booday ilmaha raadsaday ilmaha wixii aan bixin karo aan ka bixiyay meesha hal xabba iga marneed halka xabba dib aan u raadsaday idoo hulcayso dabka oo hulcaya aan ka soo qabtay idoo guban rabto aan banaan u soo bixiyay inta aan kala baxay wax kale oo aan ka gaarin ma jirin dabka alatay wixii hanti waxaan lahaa dhorta meesha ku baabeen wax dabka ku dhashay alxan garaashkaas biraha dheerka halka yaal alxanay alxankaas dabka dhashay alxankaas dabka halkaas ka dhashay saasaan wixii ku baabeen aadiya waxa laakiin qasaarana fayda ma jirto ma qasaarana fayda ma jirto qasaarana fayda iga maqnaad si u raadinay marka dambe waa heeray yara ka bixisay shay ayo gurmadka sideen ugu yimaadeen oo yaa guriga kala soo badbaadiyay gurmadka waxa ay badbaadiyay oo ay yimid dadka deriska iyo wixii jidka maraayo lama u soo daawo wax mid ciid qaatay mid biyo qaatay mid qajaq alxaas dadka na dadweynaha si ay caawiyaan alxanka waa soo dhacay wuxuu galgalay kor ma wax ka filanay miiska kor meesha ku dhacay kiya isdhili marka guriga wala caayla aragnaa ilmii waa ii baxsadeen laakiin guriga gobol ma haasta wixii aan mas'uul ilaahay soo sii qajafidii dhan waa igu gubteen gobol ma waxaan haasta malahan hatta guriga wala hay ugu dhex jiro waa igu gubteen lafo waxa ku qaadanay lafo aday isii hatta igu gubteen waxana igu gubteen oo mihiina igu gubteen ana bartaana maray meeshana maray mooto saarna kabacdi markuu dabka arag dab yiriis oo ka kacay kabacdi gabar ordaysa guriga gashay gabar ordays markay qaalinaysa ilmo badan ayaa kabacdi anina guriga waa ka daba galnay ilmiya la soo bixinay waa ka dabkana saas oo u kacay kabacdi gurigan kale uu gaaray guriga kale waa soo saarnay meeshan dugsi iyo guriga isku jiray alxanuuna ka kacay dab meel la alxama bal koronto xulwa alxama laakiin alxankii uu ka kacay dugsi iyo ciyaal wax dad wax meesha ku gaaray kabacdi maamulka wacnay dhanka kale waaxda dabdamiska gobolka Banaadir oo markii dabku kacay soo gaaray goobta ayaa inooga waramay sidii xaaladdu ku bilaabatay daqiiqo ama 5 saac bar wuxuu dabka kacay degmada Hodan gaar ahaan waaxda Faanoole waxaan ugu soo gurmanay sidii ugu dhaqsiyaha badneed oo waajibaadka naga saarnaa waa imaanay dabku wuxuu ka jiray goob barakacayaal goobtii barakacayaashii qayb ka mid ah gubatay wuxuuna ka dhashay alxan ilaahay mahadiis waxaa noo fududaatay inaan damino dabkii waanu ku guuleysanay waxaana goobtii ku badbaadinay dugsi meesha ku yaalay iyo qaybo kale oo barakacayaashii ka mid ahayd iyo guryo kale oo ku dhagnaa meesha wax khasaaro ka jira waxa ku ekayn khasaariyay goobtu dabka ka kacay oo kaliya wax dhimasho ama naf meesha ku go'day ma jirto waxaan aad ugu mahadcelinaa bulshada ku dhaqan degmada Hodan gaar ahaan waaxdan oo aad noo la shaqeeyay maamulka degmada iyo ciidanka booliska oo amniga iyo wixii kale aad noo u qabtay marka la'aantoodna wax ma fududaan lahayn halkani oo ah guriga dabka ku kacay ayaa wax khasaaraha hantiyadeed aysan ka dhalan iyadoo xaafadda dadka deegaanka iyo sidoo kale gaadiidka gurmadka ee dabdamiska ee gobolka Banaadir ay gurmad u fidiyeen isla markaana khasaaraha hantiyadeed ma ahana mid nafayd uusan ka dhalan sida ay noogu warameen dadka degan xaafadda. Duceysane Shabelle TV muqdisho.